wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ayaan Yuusuf Maxamed oo ahayd inaan daayir oo hore warbaahinta loo soo galiyay iyadoo ay ku tacadiday haweeney ay isku qoys yihiin isla markaasina wasaaradda waxbarashada oo hore ugu dhawaaqday inay kafaalo qaaday guud ahaanba waxbarashadeeda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno ay weeliyeen agaasimaha guud iyo xubno kamid agaasimaha xudeeda wasaaradda ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ay qaabilaan isla markaasina inta nolosheeda ka hadhay ay waxbarashadeeda qaabili doonaan ka wasaaradahan ayaa sababtaynu u qaabilay marka waxa weeye in aynu waxbarashadeeda ay wasaaraddu damaanad qaato ilaa iyo markay bilowdo ilaa iyo hadii la yiraahdo ilaa intay dhameynayso heerkay ka gaadhay iyadu berigi dhaweyto aynu warbaahinta ka daawanay waxyaabo ay la kurantay oo laga yaabo inay cid kalena ku dhacaan inagoo caruurta Soomaaliland oo mas'uulka haddana kuwa uu dib la soo darsa ama ha yaraado ama ha weynaado dabqashadeedaynu leenahay ayaana waxaynu ka rajaynaynaa iyo qoyskaba iyo ehelka iyo dhammaan reer Soomaaliland in aynu la dagaalano oo aynu joojino cid kasta oo tacaddi ku sameynaysa caruurta iyo qof kasta oo jilicsan marka waxaanu ka rajaynaa ayaana inay wax mustaqbalka markii weynaatay PhD qaadato inay ka shaqeyn doonto in caruurta aan fursad u helin waxbarasho habliye inaba ama dhiban sidii ay ugu gargaari lahayd soo dhawaada ayaan abtigeed wasaaraddu waa tiidin bal qaaday inay waxbarasho in ka laga bilaabo waaxda waxbarashada tooska ayaa iskuulkay doorato geynaysa amba ka gurigooda ugu dhow amba kay doorato wasaaradda ayaana bixinaysa hadii la yiraahdo waxa ka rajaynayaa inaad dadaasho wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Toorno waxa uu guud ahaanba fariin u diray waalidiinta kala duwan iyo mas'uuliyiinta gacanta ku haya qeybaha kala duwan ee waxbarashada in laga hortago tacadiyada loo geysto caruurta waxaanu tilmaamay wasaaraddu ay mas'uul ka tahay guud ahaanba daayirta kala duwan ee Soomaaliland waalidiintana waxaan ka codsanaynaa in caruurta loo edbiyo qaab togan oo wax ku beerinaya maskaxdooda oo wax u sheegida laakiin aan ahayn waxyaalo ku ah jir ahaan maskax ahaan iyo caqli ahaanba goobaha waxbarashada Soomaaliland oo dhanna waxaan doonayaa inuu sheego in ilmaha uu wax ku dhaco ardayga wax ku dhacaan 4 saacadood gudahood waa in xarunta wasaaradda lagu soo gaarsiiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Bakar Maxamed iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska Xuseen Cabdi Caawil Fadcade oo halkaas ka hadlay ayaa iftiimiyay in wasaaradahan ay garab istaagi doonaan ayaan iyo waxbarashadeeda si dhowna ula socon doonaan muddada ay ku jirto waxbarashada iyagoo sheegay in ayaan la geyn doono goob alla goobta ugu jeceshahay in ay wax ka barato maanta waxaan la joogtaa ayaan Yuusuf Maxamed Diiriye waa muwaadiniinta reer Soomaaliland oo tacaddi runtii aan saxaafadda ka aragnay qof haween oo ay family-giina u geysatay laakiin ayaana waxa farxada in qarankaaga ku heliyay in shaqo lagu siiyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan banku shaqo ku siiyay wasaaradda waxbarashada saa wasiir ku dhawaaqay lagu siiyay marka waxbarashadaada iyo deeq waxbarasho wax xuquuq iyo xaq waddankaaga ku leedahay adna waxa laga doonayaa mas'uuliyadda culeyskeeda inaad qaado sida waddankaaga u jeclayd inaad ka sii badan u jeclaato waxbarashada inaad ku dadaasho marka dhammaan muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland runtii tusaale u tahay adiguna qarankaaga ku damqaday inaad jeclaato lana shaqeyso waxbarashada ku dadaasho wasaaradda waxbarashaduna waajibkii qaranka ee muwaadiniinta adigoo kale ku lahaayeen bay markaa gudanaysaa nabi yuusuf ban xasuustay calayhi salaam oo ay walaaladii ceel ku rideen oo markii dambana boqor ka noqday oo khasaaynal ardi lagu wareejiyay nabiyullaahi yuusuf waxa weeyaan sababtu noocay doontay soo mari kartaa waanay mahadsan tahay oo ayaan waxaan aad iyo aad iyadana ugu ducaynayaa inay cafisay oo cafiskana waxa weeyaan astaamaha dadka wanaagsan ayaanay soo dhawow waxbarashadaada insha Allah haday buug noqoto iyo haday qalin noqoto iyo haday wax dhigashada noqotaba wasaaradda waxbarashada qaaday Shaafici Ciise oo ah ayaan abtigeed ayaa isna ka mahadnaqay deeqda waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo fidisay inantaasi oo ah inaan aad u daayar isla markaasina u baahan adeeg waxbarasho magacaygu waxa weyn Shaafici Ciise Cusmaan waxaan ahay ayaan abtigeed sawada garanaysaan ayaan waa aragteen aduu gabadh qoyskeeda ay dhibaato ka soo gaadhay meeliyahana gelisay maanta waxaan joognaa wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaan la kulanay
wasiirku wuxuu ballan qaaday waxbarashadeeda inay taageero inuu waxbarasho bilaash ah siin doono waxbarasho wasaaraddu ay siin doonto iskarab taagga wasaaraddu iskarab taagtay iyadoo markii horena ay dawladdu iskarab taagtay oo baanka shaqo laga siiyey oo gudoomiyaha baanku markiiba shaqo ugu ballan qaaday shaqada inay gasho ay ka shaqayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye waa idinka mahadnaqaynaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha wasaaradda oo dhan sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa hodan oo iyaduna xidhiidhiye ahayd oo wada xidhiidhsiisay anaga iyo wasiirka waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintan ayaa dhiirigelin iyo waxtar u noqonaysa ayaan yuusuf maxamed oo ah inan da'yar isla markaasina waqtigan u baahan inay hesho waxbarasho iyo mustaqbal